لكن waxaan xusuustaa غرائب baa ku soo maraysa غرائبta ay soo martay waxaa ka mid ah taariikhdana ma sheegayo ka soo halkay ahaydna ma sheegayo laakiin waqti dhow maaha way maxaa raggii hadda benshinistaha igu sheega taageeraysa moogta meel baa nala geeyey waqtigii gurmadkana waageena annaga wuxuu ahaa anaaba iska shafeeye waqtigii askarta laga dhigayay dadka gurmadkii national defensiga ee dowladda marka meel baa national servicekii nala geeyey ilaahay amarkiis marka jamaacada masaajidka marka lagu tukanayo saan in yar ka hor sheegay masjidku wuxuu leeyahay imaam iyo muadin soo ma wax kale ma laha waan iska jamaaca yaraa runtii masjid markii salaada la galo oo imaamku allahu akbar u yidhaahdo horta muadinku wuu aqima laakiin cabaar buu daahaa hore salaada kama xirto xaggaasuu dhowraa xaggaasuu gadaal u aadaa nin adiga waardiye ku qoran oo kale anigu marka ma fahmi jirin salaadii imaamku marka muadinku markuu allahu akbar dhaho baa cunigeer albaab ka soo gala cuniga markaan qiyaaso da'daas waa 8 9 7 8 9 meelahaasaan ku qiyaasi karaa wiilka markuu soo galo wiilka xataa wuu taagtaagsanaya wax shan qarama sameeyay adigu muadinkan kaale qofka u sheegay adigu sheeg kamera ma hortaal wax ma hor yaalaan hal mar buu intuu muadinkii soo baxo buu ki yaraa marka bursanaya ki yaraan albaabka ka baxaya markuu baxo kadib muadinkii ilaa salaada laga baxo wuxuu wataa baaldiye biyaa meel u yaal marka marba buu soo dhaaminaya sakeel mid kale ويهي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيبتي سدحات ورئيسي دكتور علي محمد صالح دكتور waxaad duubtay dhowr jeer oo kala duwan tafsiirka quraanka kariimka keebaad isleedahay oo ugu faa'iido badan yahay ardada u tilmaami kartaa runtii tafsiirku wuxuu ka mid yahay qayb kutubta gaaraya 95 kitaab konton iyo 8 ka mid ah funuun kala duwan leh duuban qayb ka mid ah wallahi alxamd tafsiirka horta 5 mar buu soo maray marna waa iyadoo maalintii juz la aqriyo ala طريقة الجلالين oo 8 iyo 5 hal bil lagu dhameeyay aan ku dhameeyay aan meel markaa ka aqrinay waa jirtay 89 9 isagoo 3 maqra ku baxaya oo uu duuban yahay cajaladaha caadiga ah ardada jaamacadda markaa dhiganaysa inta meesha jooga aan isna ka aqriyay ka uu duuban yahay aad buu degdegay iyo waxa jira 3 jeer oo hadda aan Norway ka aqrin marna waa tafsiirka aad u dheer تفسير هذا داوي وسعودي أفر سنة 6 بلاد و300 لحظة حلقة مالها ساعدي بر لقيه عجلة دون يسعته وطوال مرجع أساسي وياهي الإمام القرطبي كتاب كيس تفسير ابن عاشور الطبري ابن كثير فيض القدير طوال كتاب مرجع رنتي تلخيص كودي وماشى مركا إلى إضافة إلى ذلك وحانس ليها باهية لو باهية فكري أما هدون نقول لها إعجاز كعلمي هدون نقول لها طرحي المانتا معاصر كمركا الرأي كوامد ميت كل واحد رئيسنا لو بل أنكر لما بالرمضان بالرمضان وما أنت حزب الأقليمي حزب شان يتوين حزب رمضان كان شان يتوين حزب إذن كامل والدوبية هاي يسوق فيديو يعد بقى ميت كسد هذا وقد بيه وميت سدح مقر له آخرينيه ودق كانوا والدوبية والله الحمد marka dadka badana waxay aad iyo aad ay u jecel yihiin wax degdega kan degdegay badan oo dadku weydiiyaan waxaan u sameynay telegramka email kala duwan bir ramadaan walbaba walaalo oo ma aragtay ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo sheekh Hussein iyo ma aragtay Ibrahim Ismaaciil iyo rag fara badan iyo Najiib iyo rag runtii duubay rag badan waxa jira hadda aan koobi kan aad uga shaqeey imtixaan oo sameeyay hadda saddexdii ramadaan la soo dhaafo kale 10 juz baan soo dejinay siiba dadka aan horay wala qabsan karin oo kale qofkii imtixaan buu galaya imtixaanka markii automatic ah waxa soo dhacaysa
shahaadada usoo dhacaysa marka tafsiirkaas aad buu afgaaban yahay oo aayaddii laqbada iyo in yaroo haddii naxwo ay jirto oo kale ama tawjiih yar u baahan qiraa'o tafsiiri oo kale maahana inaan marka la sharxin laakiin anigu طaalib cilmiga qofka oo aniga xataa markii aan diyaarinay aad ugaga faa'iiday aan qofka dhihi lahaa kaas xoogga ha saara waa kan dheer maxaa yeele aayadda jawaanibteeda kala duwan buu runtii daboolaya laakiin degdeg ah qofka raba inuu wax taxdiirsado oo kale kan ayaa marka badanaa ay dadku ay runtii degdegii dadku jecel yihiin ma jecla wax dheer waan laga soo bax waqtigii ma aragtay qofku saacada fadhiyi lahaa waa laga soo baxay waayahay waa mahadsanta sheeqayi maadaama aad ka mid tahay dadkii xalaqaadka wax ku soo bartay dhanka kalena jaamacaadka aad wax ka soo baratay ayadana oo jaamacaadka aad yacni aad wax badan ka soo ogaatay wax ka jiraan aad ogtahay cilmi badan aad ka soo qaadatay teebaa faa'iido badan in xalqooyinka la fadhiisto in jaamacaadka wax laga soo barto labadaba runtii waa isdhamaystiraan waxaan aaminsanahay qofka xalaqada ka maqan tahay haddii 10 jaamacadood ka soo baxo waxbaa ka maqan qofka runtii xalaqaad keliya ku ekaado jaamacadii aan aadin wax badan baa ka maqan xalaqaadka runtii waxaa ku dhan ikhlaas laguma khasbin cid ku daba taagan ma laha wax mishaar kugu siinaya ma laha shahaadad qaadan doontid ma laha meelaa shaqo kaga raadin doontid ma laha waa adiga iyo waana sababta aan weli u dareemo raadkooda duruusii aan meesha ka qaatay oo ah yani waxaa laga yaabaa kitaab xalaqa igu soo maray in aanan u baahnayn inaan diyaariyo lanna waxaan isleeyahay cid ku qasabtay markaa ma jirin dan gaara maadan lahayn shahaado maadan raadinayn mishaar kuma qaadanayn ikhlaaskaasaa laga yaabaa iyo dee in waqti hore la barto markaad yartahay halka darsi jaamacadeed aad soo qaadato aad u baahan tahay intaadan jirin inaad taxdiirisid ama aad diyaarisid waxaan isleeyahay ikhlaaskaa ku yaroo maxaa yeelay shahaadaad raadinaysay rag baad la tartamaysay waxaad isleeyahay markaad ka soo baxda halkaa shaqo kaga hel marka markaan ka hadlay min naxiyat اlikhlaas waxaa runtii cajaa'ib leh waxaa lagu magacaabo alxalaqaat laakiin labadooda waa daruuri xalaqaadku waa mumahida liلطariiq qofka wadaday u furaysaa in kitaabkii uu yani lagu kala furfuro oo aad fahmi kartid waxa macnaha kelmaddu ay tahay laakiin waxaa maqan albaxth alcilmi waa maqan waxaa maqan luqada carabiga oo talaaqadeeda iyo salaasadeeda leh oo dadku ay ka maqan tahay waxaa maqan qofka inuu alinfitaax u yeesho inuu iطilaaciisu waasic u noqdo waxaan isleeyahay ma dhibtu ma xalaqaadka inay ka jirtaa ilaan hadda markaad xagga iyo maraakesh iyo ribaad iyo meelaha kale xalaqaadku ay ka jiraan dadku sida jaamacaadkay u furfuran yihiin marka waxaan isleeyahay xalaqaadka waddanka ka jira haddii medium instructionka luqadda wax lagu dhigaya hadday luqa carabiya noqon lahayd jaamacad maalin looma baahnayn maxaa culumta xagga taal iyo dadaan ogahay meesha joogo jahabida ah haddii ay luqadda carabiga kusoo gudbin lahaayeen looma baahdeen maalin in maarag jaamacad kale marka la aado lanno iyadaa ardayga u sahlaysa inuu shuruuxdii suu doon u dhex dabaasho iyadaa u sahlaysa inuu wax qori karo marka alxalaqaat alcilmiya oo luqa carabiya heshay waddanka soomaaliya waxaan umaleynaya jaamacadda inaan loo baahdeen laakiin maanta maxaa keenay in alxalaqaat keliya qofka aanay ku filnaan jaamacadda u baahdo maxaa yeele luqadaasa halkaa dhibaata ay ka jirtaa waayo doctore maadaamaad in badan ku dhex jirtay ama dhexdhexaadinaysay familo iskhilaafay ama qoysas iskhilaafay nala wadaag dhacdadii kugu xanuunka badneed ee qalbigaaga raadka ku yeelatay oo qoysaskaas ka dhex aragtay runtii waxaa fiicnaan lahayd inaan xusuusta dib u celiyo oo laakiin hadda waxaan isleeyahay dhacdooyinka horta aad bay u badan yihiin qofkuna wuxuu weelaan karaa markii dhacdadu ay tahay mid un keliya maala markay mid dhacdo waad ogaan karta lakin marka waxay badan yihiin wuxuuna ay isu wada eg yihiin mashaakilkuna mashaakil aanan dhammaanin oo 24 saac la isweydiiyo horta wax la qiyaasi kara markaa mala laakiin dhacdooyinka waxaa ka mid a dhacdo haweeney laba nin isla qabta yani mid walba wuxuu leeyahay anaa qaba mugta waxay ka mid tahay dhacdooyinka khatarta ah iyaduna ay wax daliili meesha ma hayso laakiin waxay ku andacoonaysaa anaa ma aragtay go-aankaas qaatay diin yari runtii maaha markaasay u fiirisay qof kastoo maanta waxay ka min almacluum min addiin bidaruura bay ku jirtaa
gabadha muslimadda laba nin meel isugu keeni karin waxay ka mid tahay waxyaabaha na soo maray ka mid tahay wuxuuna annaga marka dowrkeenu wuxuu ku eg yahay alfataawa qado wuxuu u baahan yahay in majlis sharciya uu jiro tiim barihiisa wata qadihiisa wata dowlad hoos yimaado laakiin badanaa dadka waxaan weydiinaa marka howlaha aan gelayno oo kale inay soo qor dhiibtaan waxbana ka sixinaa diyaar ma tahay laakiin qadaayaadka fasqiga iyo howlaha waaweyn ma galno laakiin marka dhacdooyinka waxaa ka mid ah in ay marmarka qaarkii ay dhici karto howlo sidaas oo kale oo runtii na soo waajaha ay jirtaa waayahay waa maasanta dhigtoore kutubta aada duubtay bal qaar inooga tilmaam iyo ardada meeshay ugu hagaagi karaan ama ay ka heli karaan runtii anuu ma lihi صفحة رسمية يعني إيجارة لكن ده ملا بعضاً رنتي دار علمي باسي رنتي آد وحبضنو الرسا يهدق عليها في تليجرام كي هاي وكلا ويوريان يو تراث علماء الصومال المسجل هو هذا اللي سميه جزاهم الله خيرا ولا له حاجة وحبضن بلغو أوري إلا هذا كنت نسديت كتاب نوي دوبان تاعي ومركا فنون كلا دونا الكاسي مركا دتك رنتي كقاضن كران دتك سوحة طلاب علمي انت runtii sida daqiiqa xuraadinaysa un baa hoos iyo dhacda laakiin dadka badana waxay aad ma aragtay tarkiiska u saaraan tafsiirka ma sha Allah Allah ku barakeeyo laba isu kaana qaba marka sidee ugu fudud ee luqadda carabiga lagu baran karaa iyo talo guud aad siinaysid ardada Soomaaliyeed ee xilligan muujadaha mashquul kugu furan yihiin soo dhaw runtii cilmigu wuxuu u baahan yahay laba shay inuu helo oo aan dadka ugu soo celceliyo qofku inuu isiisiyo intaad cilmiga siisid buu ku siinayaa iskaa siinayaa maalan saacad 10 saacadood horta tarkiiska waa daruuri mid labaadna qofka markuu wax bilaabayo inuu bidaaya qawiyeysa la yimaado inuu xoog ku bilaabo marka si xoog wax ku bilaabo wadadii u basaaranta laakiin albidaaya daciifa qofka isagoo ma aragtay luga jiidi hadduu bilaabo ama khasban yahay oo kale meeshaasi marka ka firdhan doonta ma sii wadi doona taa waa mid labaad in yar markaan xalaqaadka ka hadlayay waxaan xooga saaray luqada carabiga waa muhiim oo weli aan dhihi lahaa culimada Soomaaliyeed way karaan awoodoodana way gaarsiisan tahay ilaahay nuu barakeeyay qaar waxa arkaysaa jibaala oo markay wax qorayaan ama la fariisatid laakiin aan jeclayn inay ku hadlaan runtii dadkan aad arkaysaan oo carabta tirada badan dadku dhageystaan waxaa laga yaabaa qofka inuu ka fakeray usluubkii cilmiga inuu soo gudbiyo anuu ku mashquulin naxwihii aanu ku mashquulin laga yaabaa inuu soo doono marka u kordhigo u godo qofka horta inuu bidaayadaas in la galo waa muhiim ardayga laakiin marka baranaya tajrubada ugu fiican aan anna ka soo shaqeeyay qaybna ka ahaa intii aan Malaysia joogay waxa ahayd oo runtii hore aanu ogeyn laakiin meesha aan ku iktishaafay waxaa jira manhaj Daawud Cabdo oo ilahaan dadka ugu horeeyay تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بكجرة في الدول العربية وحدات تدريسية قوي وهنا وليه هاي ومركي تبرر انت اللغوسية ما لها كده جرنا إن أردجا اللغة هرت ليس قاعد نحو حاجة لديجو وصرف حاجة لديجو بلاغة شيء كذا لكن أردجا إن لبرا إنه كلمة أقرن كرا وصح وحضان وصوت طوري كرا لسين كرا passages مقاطع wuxuu dhageysanay wax kasta la dhageysiinay in luqadii saytaha loo baro laakiin aan laga ilaaliyo naxwaha laga ilaaliyo qofku markii uu mustawaha 3 bil 4 bil markuu garaaco kelmadiisu bataan oo kan maxaa arabi lagu dhahaa kan maxaa arabi lagu dhahaa jumlada maxaa arabi lagu dhahaa iyadoo aan hadduu doono mudakkarka muannath ka dhigo muannadka mudakkar ka dhigo markuu intaa gaaro ayaa waxaa la bilaabaa min khilaal almaada alcilmiya oo ah passage-ka loo dhigayo ayaa waxaa laga soo saaraa naxwihi naxwayadiisu aan qofka aanu dareemi karin oo faacilka waa saasa la yeelaa iyo ficilku waa saaso mafcuulku waa kordhigay faacilku waa goday markaas loo bilaabo ama hadii luqadda walba hadda ma aha waa kelima carabiga english you name it bidda doonta noqoto qofka hadduu grammarly u bilaabo luqaddu ku fashilmayo Soomaalida marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala laba shay wuxuu siiyay ama saddex shay oo malaha kale aanay lahayn waa mid dad fahmadu aad u sarreeyay carabkoodana waa fudud yahay waxay doonaan bay luqad kasta ninka Soomaaliga cudmadiisa badan lama dareemo hadii uu meesha ku soo koro ama uu runtii ma aragtay doonto marka uu raadiyo waa laba qodobka saddexaad Soomaalida ay ku fiican yihiin waa maxay quraankii baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala in qofan quraan soo dhigan marka ma la oo makharij way diyaarsanta
ما أركن قف عد أي أنت أجانب فربنا معلم وهاي كوان وحلا صبرنا عد أي لغة عربية كيف وضح ذات كصومالي المارك حتى السودان مخارج خارج مكيني كلام معنا وسط جامعات كويا الماليزيا وحاجة مقاطع لتسجيليه عمل الضوبة والله تلقى أرضي غير ناطقين كأنه برت مثلا أرض بعقرنية ولا الضوبة يا سي أرض كلا لو جباهي إذا معلمين السودان جوجان ولا أنا بروف إنه يعني PhD هولدر أو وصابرت تدريس اللغة العربية لغير الناطقين يسوي الجوجا أي أرض كمدة أنت الله يسوع ده حول أي اللي أقرب باسج كأقرب مركزه خادي يحادي يقادي كلا صارية بمعنى ما محوضات عرب كود سليم يهود مركز نينك سومالي وحال ربا مواهبة الإله يسيء مخارجتي إنه سيدون وصودون ودواقي كرو إن حفظي إله سبحانه وتعالى وسهل سومالي تا إله وسهل إذا القرآن كين مساعد معين وياي سوماليا halka dadka kale koorsooyinkooda sanad iyo 2 sano ay gaarayaan waxa ku filan 3 ilaa 6 bil dad badan runtii arinta tajrubayne lidaraja inay wax qori karaan oo taqriirka bixin karaan oo warqad la'aan hadli karaan oo muxuu ahaa maqaalaadkii qori karaan way gaari karaan Soomaaliya dib kuma hayso inta kaliya loo baahan marka hadii hadda ducaada wadanka muddaan moogahay runtii wax badan kama sheegi kari لكن أنت عندك دقيقة أنت يرى ما عرفت حفتي جوسو قارت رنتي الحمد لله نقلة وحلا قالت تيهرة كدوان اللغة العربية ما أنتوا عندي كرا إن أي تهي اللغة في الصومالي بقى كدونين أدب الله برتي مد على أقل درجة نيك الصومالي هدوس قري كن أقري كن وحكى الله أما وحكى صالح شيء وفهمي كرا خطبة جمعات كان نيك الصومالي كترجمة أوبانا بقول كي بس عشان رنتي ما شاء الله هذه أدب ما صدق دكتورة ما دام عاد وضمضة يوروبتا sidaad noo sheegtay dacwada in badan aad ku faafinaysay rubac qarni aad joogtay taladu kugu jirtaa inaad wadankii u guurto ama dacwada u rarto runtii su-aashu xanuun badan bay kicin kartaa run ahaantii oo masalana wadanka 87 sano uga soo tagay 2 mar oo 5 maalmood iyo 5 maalmood oo saa u sii fogeyn baan runtii tagay oo horana ka soo laabtay muddadaas horta moogahay mar walbana way ugu qufulan tahay meeshaas biidin Allah subhanahu wa ta'ala waa mahad meesha qofka uu ku dhashay waana runtii aad noo xiiseeyaa laakiin hadda qorshayaad oo aan dhihi kara maalintaas ayaan geedi u ahay runtii iyo muuqato laakiin waxay ka mid tahay umniyaadka ku jirta biidin Allah subhanahu wa ta'ala maxaad isleedahay adduunyada waad uga tagi doontaa oo dhaxal ah horta ilaahay subxaana wa taala waxaa weydiisanaya inaan dembi kaga tegin oo ilaahay aamiin iyadoo uu noo dhaafay waxa muuqday waxa noo qarsoon ilaahay keliya og yahay aamiin horta ilaahay subxaana wa taala inaan hortagno hadihi umniyati oo aan aniga iyo inta ahlu khayrkaaba iyo qof walbaba runtii aan la jeclaan lahaa taaba midda labaad run ahaantii wuxuun baa sheegnay maalmo إن الله سبحانه وتعالى حرف كمية أقبلنا وحي كمية وحيابها إلهي أن ويديسان رنهانتي وحان إسلاي هاي وحدتك اللوغة تجي كره وحاوفي عن وحقرن وحدتك اللوغة تجي كره وحاوفي عن وحقرن وشيء قرن يرنتي لحال قلبه نقنه هذا دروس ترى ضان إلا الضوء مرة مركي سيستم عصب الضوء سلوك جوريدين كأيجا يقانه تيهر واسم صحراء هذا يعني بكل صعوبة أيها واحد لو أوروني أشرطة الشيخ عمر فاروق رحمة الله عليه بكل صعوبة أيها واحد لو أوروني أشرطة الشيخ محمد معلم الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا واحد محاضرة قيام بضن ومضى وحوين كبد الشيء لها بركة عيدة كبضن عن القياسي كريم بكل صعوبة ما أنت لو أوروني يا رنتي مركا هدي أعماشها ترى بضن لو رجع قرال إيادا مركب واحتري كرت وأدوك هاي رجع ووينه بن عثيمين بن باز رحمة الله عليه أردوا بتفريغين جست مركب وحوفي عن سلاه وقرال كوانا كان مركب حوج هذا أنصاره نسأل الله جل وعلا أنت اللي قران إنه إله اكتسم وكديك مقبول نوافجي أنت عرسان بإذن الله سبحانه وتعالى. جبدي كنتي أنت لدونك سوى جوكتي بحاكو ويا بدنا ونلاش هذا اللي يابتي maxaa kaa nixiyey intaad adduunka joogto kugu naxdin badnaa saas oo kaleeto maxaase kaa farxiyey
horta intaan faraxsanahay iska badan ilaahay subxaana wa tacaala anoo ziyaadiye allah ku saadiso waxaan la fajaco weynna ma arkin walilahi alxamd wax gariiba oo runtii hadda aan dadka u sheegan runtii ma hayo laakiin waxaan xusuustaa qaraa'ib baa ku soo maraysa qaraa'ibta isoo marta waxaa ka mida taariikhdana ma sheegayo ka soco halkay ahaydna ma sheegayo laakiin waqti dhow maaha waaya maxaa raggii hadda benshinistaha igu sheega taageeraysaa mogta waaya meel baa nala geeyey waqtigii gurmadkana waageena annaga wuxuu ahaa anaaba iska shafeeye waqtigii askarta laga dhigayay dadka gurmadkii national defensiga ee dowladda marka meel baa national servicekii nala geeyey ilaahay amarkiis marka jamaacada masaajidka marka lagu tukanayo saan in yar ka hor sheegay masjidku wuxuu leeyahay imaam iyo mu'adin soo ma wax kale ma laha waan iska jamaacayaa runtii masjid markii salaada la galo oo imaamku allahu akbar u yidhaahdo horta mu'adinku wuu aqima laakiin cabaar buu daahaa hore salaada kama xirto xaggaasuu dhowraa xaggaasuu gadaal u aadaa nin adiga waardiye ku qoran oo kale anigu marka ma fahmi jirin salaadii imaamku marka mu'adinku markuu allahu akbar dhaho baa cunigeer albaab ka soo gala cuniga markaan qiyaaso da'daas waa 8 9 7 8 9 meelahaasaan ku qiyaasi karaa wiilka markuu soo galo wiilka xataa wuu taagtaagsanaya maxashan qarama samaynayo adigu mu'adinkan kaale qofka u sheegay adigu sheeg kamera ma hortaal wax ma hor yaalaan hal mar buu intuu mu'adinkii soo baxo buu kii yaraa marka bursanaya kii yaraan albaabka ka baxaya markuu baxo kadib mu'adinkii ilaa salaada laga baxo wuxuu wataa baaldiye biyaa meel u yaal marka marba mid buu soo dhaaminaya sakeel mid kale meeshuu nadiifinaya marka intaa uu nadiifinaya wuxuu leeyahay najaaska goormuu daahir noqday najaaska salaada waa la dhaafay salaada labaad salaada ka yarna ma haro fajr hadday taa waa taagan yahay duhur wuu taagan yahay casr wuu taagan yahay maqrib cisho shanta waqti annaga dabcan shaqadeena badnay laakiin markaa meesha kusoo tukano mu'adinka iyo kaa yar ilaahay subxana wa tacala isku sallida kadib baa nin horena isku xaafad ka wada nimid meeshana aan xagga magaaladiisa ahayd baan waraysto se waxu jiraa baa hawshan maxay tahay wuxuu yidhi mu'adinku wiilkan runtii waxaa loo sheegay inuusan aabba lahayn isna waxaa ka dhaadhacsan mar hadduusan aabba lahayn waa najaas marka wuxuu leeyahay weligiis daahir ma noqonaya buu leeyahay weligiis daahir ma noqonaya markuu meesha soo galo afar labaatanka masaajidku dhaqaa allahu akbar markay yidhahdo mu bursa markuu soo galo marka uu ordaya waxay ka mid tahay waxyaabaha qaraa'ibta oo runtii in la saxana ay tahay run ahaantii haddiiba ay dhacdo in la helo ilmahan dembi ma laha yaa dembi iska leh qofkii waxaa la yimi soo maha oo shareecadu meel bay saartay marka aqrab shay oo isoo maray runtii una baahan tawjiih waa taas marka meesha ahayd iyo sanadka ahayd ba caraf ku dhufamaysid sanadka haddii ay kaaga dhigtay si aan raggii kale isaga celiyo waa 1985 bilowga okay gurmadkii nuqta isugu beegnaa soo ma 85 meelahaas maasha allah canugaasna soomaali say tiraahdo hadda waxaan u malaynayaa meeqa laga jooga nin weyn waa waxaan rajaynayaa insha allahu in dhacdaas ayna cuqdad ku reebin laanno aad buu runtii cuqdadaysmaya in masjidka ay kaga dhigto odayaan u ogolaan waayo cid kala hadlaysana aysan jirin waxay ka mid tahay khatartan soo martay waayahay shaqii gabagabadii inoo dardaaran horta ilaahi subxaana wa tacaala hana barakeeyo aamiin dardaaranka wuxuu yahay dad waxaad tihiin da miidiyaha ka shaqeeya idinku si gaar ahaaneed waanu ku faraxsanay inaad xoogga saartaan in aad khayraadkan marka aad baahidaan horta hawsha halkaa ha kasii wada meesha dardaarankii wuxuu dhacayaa waa dhowr qaybood intii hadalka aan wadana runtii waan ku darsaday hadday noqon lahayd ikhwaani adducaad wixii aan dhihi lahaa oo ah in khitaabka diinigii gaar ahaan marka yurub la joogo kii hore in wax badan iska bedelay oo hawl culus ayna sugayso oo aynan innaga isku mashquulino dacwada aan ku mashquulno maraakiista islaamigana dadka howlwaleenada ka ah amaba hormuudka ka ahna inay iyaga isku mashquulino howlbaa sugayso ay ku mashquulaan
طهرت ومدة أقوم يمسن رنت أسوق بينها نول بنا على ثغرة من ثغور الإسلام قلب شقبق من كرا نسر لي إن ذات كذا أي الدعاء نقضان أو خطبان نقضان أو من نقضان أو محاضرين نقضان هذه منبر كلوء جلام وهي أو خطبة اللوء جلام محاضرة اللوء جلام وهذا يستا أما ذيلي كرتا 1000 مشروع أو موضوع حقوق من كرت وهذه إخلاص والجروة لكن قف كدولة أم حان رباع من بحشة إن الناس فريستو هذه تال وين وأذكتها وحي كم تحيا إخلاص كذا وحي كم تعرف تطاوع مد الله بعض دائرته ملك سيجوا جنبه كوا إحنا برتي رنتي أدم وفرح سنرتين وحبرتان ومضنا خيرات كان كهلنا كم تمرك الصباح محل برتي لكن دردارا كي دائرته سيبا ضدك جامعات كدكتاب وحيه هرت إلهي اللي هو كل صنعه إن إلهي ملاذ لو نهجيه ومعناه إذا أيته wax kasto lagu sheegayo waa in aadan markii diinkii aadan hore ka durin waxa horta in kugu program garasnaato in ilaahay uu saxsan rasuulkiisa uu saxsan dadka kale waxay sheegeen inay khaldan yihiin horta ogow hadii marka ay fahamkaaga intuu gaabto wax fahmi weyn diinta horta kala soo dul dhicina barashay u baahanta laakiin in ilaahay rasuulkiisa ka furtay oo shaqaysanaya adna raba inuu meel kale ka tuuro laba kalmadood ku aqriyo diinta ilaahay ku durin horta ilaahay subhanahu wa ta'ala loo wanaajiyo mid labaad diinkaaga yaan lagaga sheekeen adigu kaga sheekeen dadka bar oo baro oo markaa faham taa markaa waa mid muhiimsan qodobka saddexaad wuxuu dhacayaa dadka walaalaha baraha bulshada ku jira runtii dadka baraha bulshada ku jira oo u ducaynaynaa sida mutamarkii hadda weynaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha ku cabdi biqiyaadat al-ustaad Cabdirazaaq General ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo khayrka ummadda u horseeday culimada runtii ay muxaadaraad qiima ay ka jeediyeen oo فضيل الشيخ محمد عبد أمل ومواضيع كمان تلميذ فضيل الشيخ الدكتور محمد الشيبل إسنا وموضوع بالذات والحوجة ساري فضيل الشيخ أحمد عبد السمد إسنا رنتي حلقة دعائية ماشى الله سوفريسي معرفة الشيخ عبد الشيش على سوفيو إذا الدعاء اللي ديبه والشيخ محمد إدريس اللي ديبه إسنا ضد كنا اللي هو الدعاء ضد كبرها بالشدة كل جراي potentiality أما أود إلهي يسي إني وقف إنسان خيرك معنا ما صمين يسوع إن هل ملين لو ملين دعوته معنا إيه ما سمينا هذه إلهي سبحانه وتعالى كيف فجاني مركب ما أنت دن هبل بالسوق قرحي هبل بفريه سلكاني هبل بمعركة تساني هبل بكواهل لضو المري معنا ما سمينا أما كبار مسلمين إلهي سبحانه وتعالى والشرفي ما أنت رنتي مقال كان أي آمن سنته إلا مركب اسمه الجنس وحي آمن سنته إنه قروح بلنته مقال كان قروح بلنته ماشي صادق يساي waxay ku helaysaa kan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la doono iyadoon ay jeclaan lahayd kaasay heli doontaa iimaanka ha sugato $100 iyo $200 iyo views iyo hebel caan buu noqday caan bay noqotay macna ma samaynayso marka waxaan dhihi lahaa dadkan waa dad IQ-gooda sareeyo oo intelligent oo hadli kara oo dad qaarkii markaad dhegeysato hadalkooda waa orators yani markay hadlayaan waxaan jeclaan lahaa in wax badan looga faa'iideysto oo awoodan looga faa'iideysto aalad walba waqtigeeda leedahay wax walba oo maanta highly sophisticated waqti buu leeyahay waqti wax kala soo bixi doono marka taariikhda meel masbalada taariikha gelin albaab xuna ka soo gelin albaab qurux badan ka soo gala waasican oo la jeedo islaamku xaq u qabo dad waxa arkaysa ka shaqeeya mashaariic aad u qurux badan oo runtii xataa ay ducaada aanay qaban karin dad dumay isku keenaya oo kale magacyadooda wax xifdisani dad baa ma aragtay dadka wax ku baraya waxaan la yaabaa dadkan ajaanibta marka meelaha qaarkood mawaadiic kala garaysa waxa ku soo baxay meel xisaab bilow ilaa dhamaad lagu baranayo meel fiisis lagu baranayo wax badan baa laga faa'iidi karaa aniga waay aan meeshan qurmaysa kaliya xooga u saaray aan tuqsiga u noqonay meel iyadu qurmaysa kaliya booga waxaan u dul istaagay inaan reeraha meel kaga dhaco oo dumarka sharaftooda meel kaga dhaco oo dad lamaana meel kaga dhaco qof sirtiisa aan maanta dhan daba taagnaado oo hal daqiiqo aan dadka ka qosliyo laakiin تكون هذه مبعدة إياي في النار يقول فوقين كرت وحصلنا هنا مركا أدي يقول فوقان تا مركا ومدة مهم كاو وأنوبهنا مدة وحاول عيسى خطباء المنابر كارهان يوروب جوجا ضد كان يوروب جوجا ضل وقت وهي أما لو كاري كرائني حلقات صفريستان معه منبركو أمانه حتى جنانيسا 20 إلى 30 دقيقة طبعا قال 10 حوجة والله قدر صدق أما ترجمة هكذا أنت أما واحد دون هالنقاط
لكن أنت ما ممكن كوي وقلت تكون أي يقعدوا ذلك وصدق كان دقيقة صدق كان دقيقة ذاتك إن عقوش هذا الاحترامه وعاو أنت جوجل يسوع سويرتي بريها اللي سوي استاجل ماشي أو حد أنت أقرن ذاتك محي أباهي ذاتك إله بقوس قبته وكوي حنيمي وكار فديان ذاتك وكار فديان وقت بيكون جليين ويكسوهر فريستان waxay rabaan inay wax ka dhageystaan in ma aragtay soo fariiso oo waxa aan la qal umada wax tari kara marka u sheeg maxay baahideedu tahay umadan way ku dhageysanayaan diyaarna way ku yihiin taa marka waa muhiim midda kale waxay u dhacaysaa oo kale nacam ducaa far badan baa jira laakiin qof walba waxa la rabaa mustawiis inuu san dhaafin oo fataawida tirada badan arbush bay keeni kartaa haddii qof walba iska fatwoodo حلال حرام وحسهلن ما ويربشي كرتا إن بعشوا أي لا تكلا ضمبين إن أي لا مركان ماشان جوجنا علماء جوجت الله ضمبين مركان حاجة لا جوج علماء جوجت ماشى الله ضمبين ما عرفت ولا الحمد هذا إلهي ومضى رنتي وحوجو طريق مركان لا جوج يوروبا وكلا ولا الحمد الشيخ فضل الشيخ أصولي إلهي سبحانه وتعالى بركة ورنتي وحبضا فربضان ومسؤوليات نصارنا إلهي سبحانه وتعالى سواء كجدي إنه ومضي ومركان وحبضان وإفتيمي إذا هو الدور آدي مهمة marka iyadoo la heli kara jaana sidaas oo kale fadil sheekh Uthman Usuli oo fadhiyo in ma aragtay meelaha kale ma aragtay fataawi kale munaaqada laga shaqeeyay iyadoo ma qurux badan marka waxaan ka wadaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda uu barakeeyay maantana culimada ugu yara waxaan xustaa طبعا markii Sheekh Mustafa joogi jiray markuu tagay Sheekh Dr. Yusuf tagay waxaan walaynaa markii aan Scandinavia ama aan tagay waxay 2000 meelahaas ahayd iyo koodii labada kun iyo kowdii agost meelaha sayidaan filaya markii aan tagay طبعا ducaadu aad bay isaga yaraan ma yan jirin ahaantii raggii waaweynaa si Sheekh Mustafa iyana waatii ay iska soo dhaqaaqeen oo marka xagga ay wadanka soo aadeen baahi laakiin maanta alxamdulillah yani inta hadda in yar ka hor aan ku sheegay inta dakaatire ay joogta arag Finland markaa tagay Dr. Abdul Wali aaw raggii kale ducaada waxa Sheekh Abdurrazaaq Sugul aaw raggii jaamacada ka soo baxay aaw Sheekh Abdikariin محمود دقو أو رجع ماشى جوا رجع ماشى فدية الدعاء فدية مركز سويدن ما قياسي كر أنت جامعة عندك صوب بعد أنت الدعاء ده حتى مله رنتي عندوان ليس إن كوسو قرتاي في عناله مركز دنمارك أكتد يعني واحد ما أنت والله الحمد الجوا طبعا كسنة قدام بالجامعة الإسلامية وحنا كصوب بعدد أدي أتربنا ولا أنا واحد له إن علمي واسمه صحة أنت قاعد بحقرنا يسد بعد وحوالين كرتا نعم مراكز ودندك كم وضع شقيه لكران فيل دقائنا شقيه لبعض أبا لكن هل إلا بدرسي أدي إسكو إلالي دينك إسكو إلالي أقوانتا دكو إلالي وين هذه يالتا نماروات محضان عن نقض عذر دار نويه لكرتين تامرك إذا ورنتي يقدر دارا وإلهي سبحانه وتعالى وحرجيني إنه إلهي سبحانه وتعالى قبله وخير كان نوافج جزاكم الله خير ويهي وحرجيني كل ماضي حيسها بدنا سدح ذا كلناها ama saddexda qaybood ka koobnaa inaan intaas ku soo gabagabayno wuxuu ahaa dabcan waraysi aan in muddo sugaynay oo aad iyo aad u xiiso badan oo aad iyo aad aan cilmi badan iyo aqoon badan adduunyo aakhira baan uga faa'iidnay ilaahay cimrigiisa iyo caafimaadkiisa haynoo barakeeyo doctorkeena dabcan wajigiisa waa yaryahay laakiin wax badan aqarsan sida su'aalaadka aad ka aragteen إلهي سيدنا نوجو قرصين وجهي جيسا عمر جيسا الله نوجو سي بركة وعافات كيسا الله نوجو سي دائمه وحن ليه إن شاء الله تعالى ورئيسية كلا قروح بدنا وين يجري دونان سفرة ضمبه هذا كجار وين طبعا أنت دب ضمبه إسقى إما دونو وحن هذا إرينيا برنامج كان قروح بدن وحا إنه سو أجاسمي إنه حاجي فرسمة قروح بدن إنه كل شيء كاميرون كان قروح بدن إنه كلا قاضي وعبد الناصر ضاعت يا حسن دي ولا له إذا قالق أهو أمهد علينيا هذه أدباد أمها سنتين سيا وقت أن قروح بدن إنه قادتين دكتور كان أو رئيسي أن قروح بدن إنه هذا قادني أنت دب دم بإستجا إمام دونه وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشارو maamulka sare ee Healthgate Hospital wuxuu ugu bishaareynaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Kenya gaar ahaan Nairobi iyo nawaaxigeeda inay keeneen dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray oo aqoon khibrad iyo waayo aragnimo fog leh
sidoo kale isbitaalka Healthgate ugu imaaw soo dhaweyn wanaagsan qalab tayo leh iyo daawo waxtar leh isbitaalku wuxuu ku yaalaa Urban Hotel wadada Muratina Road ka soo horjeedka Buwani Police Station wixii faahfaahin oo dheeriya fadlan kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda waxaan halkan idinka sheegaynaa masaajid ku yaala xarunta Buuhoodle oo aanu hadda dhex taagannahay dhismihiisina socdo albaabadii saaka la geliyay ee hadii la ku daaqadihii la geliyay wixii kalena ay u socdaan korkiisina aad aragtaan oo qabyo yahay waxaanu doonaynaa wixii islaama ee ummadda nabi maxamada ee hadii la ku rooyahay khayr iyo wanaag jecel hadii la ku rooyahay waxa la yaabaa raacaadka khayrka jecel masaajidka inay ka qayb galaan inay ka soo qayb galaan inay wax gashadaan meel wax la geliyo bayd ilaahay baa ugu fiican walaal wixii tabarucaada waxaad masjidkaasi uga hagaajin kartaa taleefanada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda